34 qofood oo Soomaali ayaanu nahay isku qadiyad ah arrimaha burcadda ayaanu xirannahay burcad badeed ayaanu xirannahay haye xagee idin ka soo qabtay markiini hore markayga hore nin walba meel baa laga soo qabtay group meel baa laga soo qabtay anagu badda ayaana laga soo qabtay عرايا حاصل قاربا ماكينة دو شقينين wax cadayna lagu hayn qaar cadayn baa lagu hayaa rag noocaas oo suuqeena Soomaaliya ayaanu nahay badankayaga 720 qof waxaan ku xukumanaa 25 sano maxkamadda xukunka ku riday maxkamadda janaayo la yiraahdo Cumaan baa ina xukuntay yaa idin soo qabtay marka oo badda idin ka soo qabtay rag ila xiran qaar baa ciidamada nayta keentay Cumaan ku soo dhiibtay qaar waxaan hadii ku idmay Cumaan baa qabatay hay adiga ku soo qabtay Cabdikariin ahaan marka iska hadasho aniga Cumaan ayaa soo qabatay motorka badda ayaana noo shaqeyn waayay aan wadanay doontaan wadanay ayaa noo shaqeyn weysay waanu sabaynayna marka burcad badeed ahayd waad qirsan tahay taa waanu qirsannahay burcad badeed ahayd oo adoo doon wato badda joogo maraakiib aad afduubato raadinaya ayaa lagu soo qabtay waa jirtaa taasi waa cadeynteeda 25 sano ayaana ku xukumanahay maxaa ku geeyay inaad maraakiibta dhacdo oo aad burcad badeed noqoto waxaan noo geeyay dawlad la'aanta iyo dhibaatada iyo gaajada Soomaaliya haysata ayaanu noo geysay waxaan noo geysay anagu waxaanu garanay inaan gaajada iyadaan badda wax u raadsana ama lacag u raadsano kuwa Soomaaliya gudaheeda gaajo ugu dhintay anagu aqliga fikradda waxaanu keenay inaan badda lacag u doonano xageed ka soo jeedaa adii oo markaagii hore marka beriga aad ka timid gobolka Banaadir baan ka soo jeedaa gobolka Banaadir baan ka imid waa gartay laakiin markaad badda aadayso afduubka doonanaysay xageed ka gashay badda waxaanu ka soo galnay meel dhax ayaanu ka soo galnay gobolada Puntland ayaanu badda ka soo galnay nimanba waxay naga soo kaxeeyeen gobolka Banaadir anagu dad la soo qalday baan nahay dadkii waaweynaa soo qaldanay Soomaaliya inoo hareen marka lagu qabanayay ciidamada Cumaan ay badda ka qabanayeen wax ka horeeyo markab oo afduub aad geysatay ma jiraan waxaan u geysanay ma jiraan mideeda kala tuun ayay nagu qabatay xataa Cumaan wax cadayna ay noo haysayna burcad ahayn ma jirin qaarkood xabsiga xaaladiisa ka waran xabsiga aad iyo aad aan ugu dhibaataysanahay annaga waxaan nooga dhimatay xabsiga 2 qof ayaa nooga dhimatay qofna badda ayuu nooga dhintay hadii ku qaarna waa la soo wada qalo aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin safiirka Cumaan jooga ayaa ka warqaba arinta iyada lana socda asaguna meel waa noo gaari waayay nin waa noo dadaalay intuu noo dadaali kara ma garad waa gartay imse jir baa tahay aniga 33 sano jir baana markii lagu xirayayna imse jir baad ahayd 25 sano ayaan jiray 24 sano adigu 25 sano aan jiray 8 sanaad marka hadda xabsiga Cumaan ku jirtaa 8 sano ayaan xabsiga Cumaan ku jiraa aad baan ugu dhibaataysnaa aniga hadda kula hadlayo 2 jeer baa la qala waalidkaaga iyo ehelkaaga iyo reerkaaga away reerkayga iyo ehelkayga iyo waxay joogaan Muqdisho meel cilmaan qaar baa degan qaar Muqdisho gudaheeda iyo degan dad iska reebaadiyaa weeye dad iska daruufaysan oo dan yar weeye waxa maantay meel ay gaari karaan ama dawladda ay la hadli karaan ma jirto daruuftii soo xirtay oo aan badda u soo aaday baan ilaa hadda haysata sideedii baan u xiranahay waana qalanahay haddeertaan dawaayi socota muddo 1 sano iyo bar 2 jeer baa la qala markii hore waa lagu guuleysan waayay markii labaadna waa lagu guuleystay qalliinkayga caloosha ayaana la iga qala xukun baa kugu dhacay 22 sano ah 8 sanaad hadda cuntay oo xabsi aad ku dhameysatay maxaad isleedahay waa lagu qaban karaa Cabdikariinow waxa la qaban karaa sida dawladaha Hindiya iyo loo soo wareejiyay shiishalis iyo dadka uga soo wareejisay dawladda Soomaaliyeed ayaanu doonaynaa inay nooga wareejiso waxaanu doonaynaa in dawladda Soomaaliya ay wax noo qabato ay san ficil ku darto afka ayay ka hadashaa maalin walba waxay yiraahdaan dadka waanu soo wareejinaynaa